بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal meel kastoo joogtaan iyo si walbood noo maqlaysaanba kusoo dhawaada barnaamijka kulmis oo ah barnaamij toddobaadle ah maanta oo kale maalin waliba oo arbaca ahna aad ka maqli doontaan idaacadda codka gobolka banaadir ee magaalada muqdisho muujada FM ee hirkeedu yahay 87.7 megahertz alaaba barnaamijka waxaa halkan idinkaga soo jeedin doona anigoo cabdiraxmaan jeelaani ah waxaana barnaamijka kulmis aan uga warrami doonaa xaaladaha dadka naafada ah ee ku nool gobolka banaadir iyo guud ahaan Soomaaliya waxaana kusoo qaadan doonaa warbixino xiiso leh oo ku saabsan horumarada kala duwan ee ay sameeyeen dadka naafada ah waxaa maanta barnaamijka marti inoogu ah gudoomiyaha golaha naafada qaranka Soomaaliyeed Sayid Cali Cabdullaahi Salaad iyo xiriirka arrimaha naafada gobolka banaadir Basiir Cabdi Maxamed mudada barnaamijka uu habada ka baxayo waxaa soo jeedin doona anigoo Cabdiraxmaan Jeelaani ah farsamadu waa Marin Sheekh kaamiradana waxaa inoo jooga Maxamed Cali mar kale iyo barnaamijka kulmis dhageystayaal markan waxaynu guda galaynaa barnaamijkeena kulmis waxaan marka ugu horeeya rabaa inaan kusoo dhaweeyo stuudiyaha raadiyaha codka gobolka banaadir ee magaalada muqdisho gudoomiyaha golaha naafada qaranka Soomaaliyeed Sayid Cali Cabdullaahi Salaad Sayid Cali soo dhawo gudoomiyaha bismillaahi rahmaani rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin waa dhawahay waxaan u mahadcelinayaa marka ugu horeysa guud ahaan maamulka gobolka banaadir gaar ahaan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna doqo magaalada iyo bahda warbaahinta ee gobolka iyo xiriirka xafiiska arrimaha dadka naafada ah ee Basiir ay ka tahay agaasimka iyo barnaamijkan uu daadiyo ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Jeelaani iyo dhamaan maartay martida joogto meeshan intaas kadib aniga magacaygu waa Cali Cabdullaahi Salaad gudoomiyaha golaha naafada qaranka si kastaba waxa weeye anagu waxaan ka shaqeynaa arrimaha dadka naafada ah waxayna kamid yihiin bulshada Soomaaliyeed oo nasiibka u yeeshay inay ku noolaadaan gobolka banaadir xaaladahooda iyo duruufaha adag ay ku nool yihiin in sidii wax looga qaban lahaa oo lagu heli lahaa maamul iyo sharci iyo maaragtay shaqo iyo xirfado iyo tababaro iyo waxyaalahaas ay ku howlan yihiin xafiiska oo arrimaha dadka naafada ee gobolka iyo guud ahaan naafada ku nool gobolkan iyo annagoo ka golhiyaba aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay in maaragtay barnaamijkan kulmis oo arbaco walba loogu talagalay in lagu eego arrinta dadka naafada ah ee ku nool gobolka banaadir oo aan ognahay inay ka duwan yihiin bulshada kale ee magaalooyinka kaleeto naafada markii laga hadlayo gobolka banaadir waa caasimadii Soomaaliya caasimadda Soomaaliya waxaa ku nool dad lagu qiyaasay 3 milyan ka sii badan naafada Soomaaliya maanta tirada ay dhan tahay ee ku nool gobolkan qof walba oo garan karaya sidaa daraadeed waxaa jira barakacayaal badan oo naafo ah oo ku dhibaataysan daafaha magaalada iyo magaalada dhexdeedaba xafiiskan ujeedadii oo gudoomiyaha markuu asaasay waxay ahayd arrimaha naafada oo markii ugu horreeyay oo aan ku yeelano qof naafo ah oo ka mid noqdo arrimaha mataqaanaa sheegay maamulka gobolka banaadir waa ku faraxsanahay inaan xafiis ku yeelanay waxaan ugu mahadcelinayaa dadka magaalada oo ninkii ugu horreeyay oo hirgeliyay in aan xafiis ku yeelano gobolka banaadir arrimaha naafada quseeyay marka barnaamijkan ayaa waxaan rabnaa mataqaanaa sheegay waxaan aaminsanahay inuu horta barnaamijkan yahay barnaamij ay ku diirsan doonaan dadka naafada ah ee ku nool gobolka banaadir iyo guud ahaan naafada Soomaaliyeed waxna ka bedeli doona xaaladahooda iyo duruufahooda hadday tahay waxbarasho caafimaad shaqo abuur iyo shuruuc waxyaalahaas oo dhan ay wax ka bedeli doonaa aadan ugu faraxsanahay waa ka qayb qaadan doonaa waa joogtay doonaa waxaana kulli aan aaminsanahay xiriirka xafiiska oo naafada ee gobolka iyo daadiyaha barnaamijka oo Cabdiraxmaan Jeelaani ah ayaa soo maartay sheegay agaasimi doono arbaco walba maadaama barnaamijka loogu talagalay sidaas inuu noqdo iyadoo oo hadda mawduuc lagu soo eegi doono inaan ka gudoomiyahan ka soo qayb galo oo aan ka qayb qaadanana waa soo dhaweynaynaa diyaaranaanaas waa tahay gudoomiye waan kaaga mahadnaqayaa furitaankaaga mar kale soo dhaweeyaan ku leeyahay waxaan soo dhaweynayaa xiriirka arrimaha naafada ee gobolka banaadir Basiir Cabdi Maxamed soo dhawo dareenkaaga ku aadan barnaamijkan maanta kulmis ee idaacadda codka gobolka banaadir ay bilowday iyo guud ahaanba marxaladda naafada ee gobolka banaadir bismillaahi raxmaani raxiim ma sha Allah waxaan horta ku faraxsanahay
inaan barnaamijkan ka qayb galo oo maanta anaga aan noqono anaga aan bilownan waa farxad gaar ah iisii tahay. waxaan rabaa ugu horeyntii inaan u mahad celiyo gudoomiyaha gobolka banaadir oo shaqadan oo dhan asaas u ah in idaacaddii maxaa la yidhaahdaye aan saan ay u kala socoto in maxaa la yidhaahdaye naafadii loo sameeyo in xafiis gaar ah oo arrimaheeda ka shaqeeya oo in loo sameeyo gobolka banaadir looga sameeyo oo tallaabadaas qofka ugu horreeyo qaadanay uu isiga nasiib u yeeshtay. waxaan kaloo u mahad celinayaa agaasimaha idaacadda iyo maxaa la yidhahda cabdiraxmaan jeylaani oo barnaamijka aan dareemayo inay dadaal badan iyo juhdi badan gelinayaan oo xitaa agaasimihii uu nala fadhiyo in macnii barnaamijka uu ka qayb qaadanayo cabdiraxmaan inuu dadaalayo aadaan horta idinku mahad celinaa barnaamijka sida aad u xiiseynaysaan ood macnii ugu dadaaleysaan waa idinkaga mahad celinaa. haddaan u gudbo barnaamijkan muxuu tari karaa muxuu soo kordhin karaa barnaamijkan wuxuu soo kordhin karaa in maxaa la yidhahda attentionka uu soo jeediyo dadka ku nool gobolka banaadir uu macnihii ku baraarujiyo xaaladaha naafada iyo meesha ay wax u marayaan in maxaa la yidhahdaa isbedelada socda ayuu qayb ka yahay barnaamijkan. isbedel badan ayaa ka socda gobolka banaadir. naafada gobolka banaadir ku nool waxay macnihii indho iyo maxaa la yidhaahdaye madax u tahay naafada guud ahaan ku nool Soomaaliya because waxaan dhihi karnaa maantay waxaa la sameynayaa sharciga caalamiga ahaa ee arrimaha naafada la ansixiyey in maxaa la yidhaahdaye la saxiixay oo Soomaaliya ay saxiixday hindisa sharciyeed maxaa la yidhaahdaye waxaa golaha shacabka yaalla hay-addii naafada lagu dhisaayo waxyaabahaas oo dhan boqolkiiba maxaa la yidhaahdaye boqol waxaan dhihi karnaa waxaa ka shaqeeyey oo kaalin mugle ka qaatay naafada ku nool gobolka banaadir maxaa la yidhahda ayna ku timid inay maxanay u istaageen ayaga ay aamusi waayeen harsan waayeen maxaa la yidhaahdaye qayladooda iyo dadaalkooda maxaa la yidhahda ay ka sameeyeen arrintaas ayaa sabab u ahaan dhihi karnaa. waxaa la yidhahda waxaa la dhihi karaa naafada gobolka banaadir ku nool waxay xuquuqdooda usoo dhiciyeen naafada guud ahaan Soomaaliya ayay xuquuqdooda u dagaalameen. isbedelkaas badan oo dhacaayana waxaan uga mahad celinaynaa dadkii u istaagay u dhaqdhaqaaqay ka shaqeeyey maantan inay meesha soo gaartay sabab u noqday wax lagu farxo waaye jawi la bedelayaan dhihi karnaa. maxaa la yidhahdaa waanu ku faraxsannahay. waxaan u mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad cabdiraxmaan jeylaan oo asigana arrimahan aada uga qayb qaata wariyaha waa uga mahad celinaa asigana. waayahay annagoon ku mahadnaqaya mar kale waxaan rabaa markan inaan ku weydiiyo waa markii ugu horreysay gudoomiyaha gobolka banaadir uu majraha u hayo maamulka gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisu uu xiriirka arrimaha naafada qof u magacaabo adiga ayaana nasiib u yeeshay. dareenkaagu waa sidee maadaama aad muddo bila ah hadda xil u hayso naafada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka banaadir? horta waan ku faraxsanahay marka ugu horeyso waxaan ugu farxayaa arrin aan rabay in aan qabto muddo sanada in aan u taagnaayo u dhaqdhaqaaqayo ayaa waxay ii noqotay mid leh wadda laga soo galo iyo wadda looga baxa oo waxay ii noqotay shaqo maxaa la yidhaahdaye ay dowladda hoose macnihii u hayso majaraha u hayso oo leh macnihii meel system iyo nidaam loogu hagaagay. laakiin shalay anoo maxanihii oo civil society oo barnaamijka iyo hindisiya iyo wixii aan soo fakaro aniga aan banaankaas kula carcarayo laakiin hadda waxay noqotay mid macnihii arrin dowladeed sharci leh nidaam leh kala dambeyn leh maxaa la yidhaahdaye taageero leh maxaa la yidhahdaa maamulkaaga sarreeyo oo lagu garab taagan yahay ayay noqotay. marka taas darteed ayaa waxaan dhihi karaa waan ku faraxsanahay waxaana qaban doonaa wixii aan hore u qaban jiray wax ka badan inaan qaban doonaan aan aaminsanahay waana ku faraxsanahay. waa tahay dhegeystayaal weli waxaad naga maqlaysaan idaacadda codka gobolka banaadir ee magaalada muqdisho waxaadna maqlaysaan barnaamijka kulmis. waxaan markaan rabaa inaan dhinaca gudoomiyaha golaha naafada qaranka Soomaaliyeed Sayid Cali Cabdullaahi Salaad Jaleeco gudoomiye waxaa laba magacaabay naafada xiriirka gobolka banaadir Basiira Cabdi Maxamed. dhinaca kale idaacadda codka gobolka banaadir markii ugu horreysay waxay bilowday barnaamij looga warramayo arrimaha dadka naafada ah. maxaad is leedahay haddii uu sidan xaalku sii ahaado naafada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka banaadir way ku tallaabsan karaan? waa mahadsantahay cabdiraxmaan jeylaani. horta waa aaminsanahay inay barnaamijkan wax badan ka bedeli doono xaaladda dadka naafada ah. markii ugu horreeyday oo duqa magaalada maaragtay xilka qabtay wuxuu nala yeeshay annaga ka golo ahaan iyo dadka naafada ku nool gobolkan banaadirba kulamo isxigay. kulamadii waxaa kasoo baxday codsiga anagii inuu ka jawaabo
codsigaas oo ahaa inuu maaragtay aan helno maamulka gobolka banaadir inaan ku yeerano mataqaanaa isheegay dad nooga mid noqda. nasiib wanaag waxaa loo magacaabay Basiiro, iyadana nasiib u heshay. habeenkii uu shaacinayay dikreetada ay kusoo baxda Basiiro bil Ramadaan ahayd dabayaaqadeedii afurayo wuxuu nagu sameeyey hotel Jasiira waana sharfay. halkaas ayaynu maamulka gobolka banaadir oo guud ahaan la socday asagoo ay nagula afureen. halkaasana maaragtay xafiiskan lagu shaaciyey in loo magacaabay Basiiro. waa lagu dirsaday culays badan ee anaga gol ahaan naga dejiday. wax badan ayaana maaragtay sheegay oo ay naafada oo aysan maaragtay arrimaha gobolka maaragtay ay si jaanis u jirin inay jaanis u heleen. xafiiskan wuxuu noqday xafiiskii ugu horreeyay ee si gaar ah ugu xilsaaran maamulka gobolka banaadir ee ka shaqeeya arrimaha naafada. waa muhiim u ahaa dadka naafada ku nool gobolka banaadir. aad ayaana u soo dhaweynaynaa. wuxuu ka qayb qaataa oo xafiiskan uu ka qayb qaataa dhammaan adeegyada ay bixiyaan gobolka banaadir ee degmooyinka. waxaa maaragtay xafiiskan mataqaana uu ka qayb qaataa howlaha annaga ka gol ahaan aan wadno iyo guud ahaanba dowladda federaalka ee magaalada muqdisho caasimadda ah ay tahay xarunteeda inay mataqaana howlaha ay wadaan uu qayb ka yahay. waxaa markaan usoo noqdo markii la hirgeliyey oo ay maaragtay hirgeliyey idaacadda maaragtay codka caasimadda oo barnaamijkan kulmis la yiraahdo oo Cabdiraxmaan Jiilaani uu ka yahay daadiyaha. runtii barnaamij loo baahnaa weeye sababtoo ah idaacadaha waa kala duwan yihiin. idaacaduhu qaarkood iyagoo maaragtay tabiya xaaladaha dalka jira si gaar ah mawduucan oo kaleeto ma jiro hadda TV ama maaragtay sheegay idaacad iskugu taxallujisa. waana maaragtay idaacada bareefada. taasi marka waxay tusaysaa maanta in jaaniskan helno oo gobolka banaadir oo maaragtay asbuucii hal mar barnaamij ka baxa TV wala raadiyo in ay sameeyaan. waxay aad iyo aad ugu tahay xogta qarsoon ee dadka naafada ah iyo xaaladahooda soo bandhigistooda aadayna muhiim u tahay. waa barnaamijkan soo dhaweynayna xiiseynayna waxna bedeli doono insha allahu tacaala. waa tahay aad baad mahadsan tahay. waxaan ku guda jirnaa barnaamijka kulmis qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaana kusii siqaynaa mahadiha gaadho agaasimaha waaxda warbaahinta maamulka gobolka banaadir mudane Saalax Cumar Xasan oo barnaamijka door muhiim ah ka qaatay la hindiso iyo sidoo kale guud ahaan maamulka gobolka banaadir xubnaha maanta martida inoogu ah ee uu ugu horeeyo gudoomiyaha golaha naafada qaranka Soomaaliyeed mudane Sayid Cali Cabdullaahi Salaad iyo Basiire Cabdi Maxamed oo xiriirka naafada u qaabilsan duqa magaalada Muqdisho. markan farsamada muhiimadda barnaamijkan loo sameeyey waxay tahay ugu horeyn in idaacaddan gobolka ay tahay idaacaddii matalaysay shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka banaadir guud ahaan dalkoo dhan la gaarsiin lahayd fariinta shacabka. taa daraaddeed ayaa marka waxaad la socotaan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna dadka magaalada Muqdisho inuu horeyba u magacaabay xiriiriyaha arrimaha dadka baahiyaha gaarka ee qaba. tanna waxa ay qayb ka tahay sidii meel isugu keeni lahaa dadka baahiyaha gaarka qaba ay ku gudbiyaan fariinta ku aadan baahidooda ay qabaan una soo bandhigaan shacabka Soomaaliyeed. waad la socotaan waxaa barnaamijkan dhinac ka xiriirinaya oo wariyihii soo saaraya uu yahay wariye ka tirsan dadka baahiyaha gaarka qaba. dadka lagu wareysanayo iyaguna ah dadka baahiyaha gaarka qaba. fikirka iyo ra'yiga barnaamijka lagu gudbinayana ay tahay mid iyadu ka imaanaysa dadka baahiyaha gaarka qaba. marka muhiimadeena waxay tahay in aan markaa taageerno oo aan wacyigelin ku sameyno isla markaana wixii taageeraha aan u fidino dadku iyagu baahiyaha gaarka